geerida marxuumad Aamina Abiib Cilmi ayaa si weyn loogu dareemay magaalada Melbourne waxaana ay ahayd haweeney ka qayb qaadata arrimaha jaaliyadda waxaana dumarka ay sheegeen inay tabi doonaan kaalintii ay banaysay Aamina Abiib. Aamina waxay ahayd qof aad iyo aad community-ga iyaga qaali ugu ah. Aamina waxay ahayd hooyo aad iyo aad u wanaagsan, hooyo carruurteeda si fiican u soo barbaarsatay. qadarka Ilaahay baa ku dhacay, qadarka Ilaahayna cid waxba kama odhanayso. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. qaar ka mid ah jaaliyadda dumarka Somaliland ayaa ka tacsiyadeeyay geeridaasi. halkan waxaan ka gudbinayaa tacsida aad iyo aad u tiiraanyada leh eedaday Aamina Abiib Cilmi anigoo Xaliime Maxamed Geediye wax alla wax la qaban karaa ma jirto. waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo. annagana waxay nagu ahayd jaaliyadeedan dalka Australia ku nool aad iyo aad gabadh noogu qaaliya oo noogu qiimo leh. wax la qaban karaa ma jirto, qadarka Allah dhacay. Aamina Abiib waxay ahayd qof wanaagsan oo cid walba u wanaagsan, dhalasho dhaxdin cid kasta qiimo iyo sharaf ku leh. awlaadeeda si fiican u korsatay. qadarka Ilaahay baa ku dhacay, cidina ma baajinayso qadarka Ilaahay. annaguna saasaanu Ilaahay uga baryanaa inuu Ilaahay jannatul firdawsa inta ku dekaysa Ilaahay inuu ka dhigo. Aamina Abiib waxay ahayd qof wanaagsan, qof naxariis badan, qof dadka ururisa. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu awlaadeedii dadka ka tagtay iyo familigeedii oo dhan Ilaahay samriye iimaan ka siiyo, annagana Ilaahay samriye iimaan naga siiyo. waxa ay sidoo kale u tacsiyadeeyeen hooyadeed Cadar oo ku nool magaalada Hargeysa. tacsidaas oo ka tacsiyadeeyeen familigeedii hooyadeed Cadar Sheekh Xasan iyo dhammaan reer Abiib Cilmi iyo carruurteeda iyo odaygeeda Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole. sidoo raba loo yiri insha Allah halkan waxaan tacsi uga direynaa dhammaan ehel iyo qaraabo iyo asxaab iyo community go'an dhammaan waxaan uga direynaa tacsi. Ilaahayna waxaan u rajaynayaa in Ilaahay jannada firdawsa la geeyo. roor moral ayay carruurteedu ahayd. Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa reerkeedii bedel khayr qaba Allah ugu bedeli booskeedii. Aamina ayaa ahayd marwada madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole waxaana ay ku geeriyootay magaalada Garowe Khamiistii la soo dhaafay. ifka waxa ay kaga tagtay 9 carruur iyo aabahood. Ibrahim Cumar Baafe, wararka Universal, Melbourne, Australia.